سنة هذا فيديو ربعدي دوبيا وان بريدة ونكسن waxaan isweydiinayay maalin dhexdaasa waxa la dhaho ruuxda iyo iimaanka maxaa ka dhexeeya marka aniga aragtidayda baan wax yar wana daalanahay wax yar baan iska dul istaagi doonaa saan u arko ruuxda waxaa ruux loo yaqaanaa nafta iyo ruuxda inay isku mid tahay baan u malaynayaa marka qofka ruuxda waa waxa gudaheena ku jira oo aan la taaban karaynin iimaankuna waa sidoo kale waxa gudaheena ku jira oo la taaban karaynin marka waa sir noo qarsan oo dadku aysan ogaan karin baa iimaan la dhahaa iimaanku marka waxa weeye waxa caqiide ahaan u rumaysan tahay baa iimaan la dhahaa Soomaaliga marka diin ahaan waxa haysatid caqiide ahaan gudahaaga baa waxa la dhahaa iimaan marka example waxa kaloo jira haddii aan iimaankeena la ogaan karin annaga oo inaan sheegno maahane qof inuu ku daniyo oo ku dhaho saasaa tahay waa dulmi qofkaasaa tahay musabid weeye oo iimaanka uu ka been sheego example markii dadka la aragti duwan yihiin gaal baa tahay baa inta badan isku dhahaan marka qofkii wuxuu iimaankaagii wuxuu ka sheegayaa ma oga laakiin wuu ku musabidanayaa waa iimaanka qofna ma ogaan karo iimaanku oo wax sir ah oo gudaheena ku jira ruuxduna waa wax nagu dhex jirta iyaduna ruuxdeena ruuxiyan goormaa u nasataa markaad faraxdid ama wax wanaagsan aragtid inay ruuxdaadu degnaan iyo nasiino dareemayso dadka kale ma dareemi karaan laakiin adiga og markay ruuxdaada murugo dareemaysan adaa og waa lagu ogaan karaa dabcan markaad murugo gudaha ka dareemayso ruuxda oo gudahaaga laakiin waxa aada sheegeen oo gudaha kaaga jirto oo ruuxdaada ay dhiban tahay okay ruuxdii nafta isku mid miya ruuxi baa hebel ka dhacay ruuxdii qofkii ma ka dhacday naftii ma daysay naftii ruuxda waa isku mid saa u malaynayo soo ma aha horta naftii iyo ruuxda waxaa malaynaya isku mid yihiin hebel nafti baa ka baxday nafta wax la taaban kara miya may maaha laakiin hadda waa hadlayaa inaad naf igu jirto waxa lagu ogyahay waa hadlayaa dareen baan leeyahay taabashaan leeyahay haddii la taabtaan waxbaa dareemayaa qofku goormaa la ogaadaa inay nafti ka baxday markii wadnaheenu istaago maskaxdeennuna ay dhimato markaas waxaa weye naftaana daysay jirkii oo dhaqaaq lahayn baa jira inta hore naftaa nagu jirta laakiin naftu meeshay nooga jirto ama ruuxdu meeshay nooga jirto miyaa naqaanaa maya qofna ma garan karo xaggee bay ku jirtaa ma maskaxday ku jirtaa ma wadnahay ku jirtaa ma jirkeena oo dhan bay ku firdhisan tahay yinabano qofna ma oga kolaanu ma ogi qofna ma ogayaan dhihi laakiin qof dhahay waa ogahay oo cadeen ama wax la baaray ama ma jirto waa siraha aanan helin oo eeba gaarka u ah ruuxda aan ogaan karin meesha nooga jirto lahaada iimaankuna waa saasoo kalaa wax la taaban kara maaha laakiin waa sir anagu aan leenahay oo gudaheena ruuxdeena ma ogin meeshay ku jirto iimaankana ma ogin meeshay ku jirto laakiin iimaankeena waxa iimaanka aan qabno oo haysano caqiidada anagu waa ognahay dadku laakiin ma ogaan karaan markaan dadku u sheegno bay ogaan karaan qof inuu ku dulmiyo ku dhaho maya saas baa tahay intee dhan saas baa ahay oo qof edab daran weeye waa qof edab daran aad iyo aad buu edab daran yahay isla garanna ruuxdii iimaanku
waxay iskaga egyihiin ana aragtida waxa weeye waa waxaan la taaban karin labadooda lama taaban karo meeshay nooga jiraan ma naqaano ruuxdu markay naga baxayso ma ogin awooddeeda ma lihin iimaanka laakiin awood waxaan u leenahay waa ognahay iimaan ahaan waxa u aaminsanahay caqiida ahaan waxa u aaminsanahay iimaanku waa caqiido haddii waxaan aaminsanahay aan naga masaxmaan ama ay lownana waa ognahay anagu waa ognahay dad kale ma ogaan karaan soo iimaanku waa waxaan u ognahay dad kale ogaan karin ruuxdu inay nagu jirto dadka dhan way og yihiin laakiin meeshay nooga jirto ma oga dadku anaguna isma ogin ma fahanteen laba meel way iska leeyihiin meelana iskama laha intaa mayla garateen horta ma garateen ragga bilicda guudiyo barashadu habboona kolkay kula balamayaan waxaa soo hartay fideoga uga faa'iideysanaya quruxdeeda aniga waa isjeclaaday waxaa ka daran baraafunka iga soo carfaya marsaday markaan saas isku carafsado aniga waxaa is dhahaya caraf badanaa wax garanaysa marka anigaba carafteydii isla dhaxsan iyo saan u murqa waaweynahay aduunkuna waad jeclaan doontaan inta fiicfiicane maxaa sheekada inii wada maxay ahayd halkaasaa waa gudbayaaye arrinta marada maaldhowta bahal yaroo bahalkan baa xirtay bahalkan waxaa la dhahaa waxaa la xirtaa xilliga christmaska la xirtaa xilliga christmaska marka bahal waxaan diin ma ahan oo dadka diinta kristanka aaminsan oo dhan ma xirtaan misaa lalama gala kaniisadda laakiin marka sanadka cusub loo dabaaldegayo baa la xirtaa may fahanteen soo anoo ku daansi garaynaya anu waxaan deganahay waddan majoritigiisu aynan diin haysan dadku diin ma haystaan laakiin qayb baa waxay haystaan diinta kiristanka waxa ka dhisan kaniisado marka dhaqan ahaan baa caada ahaan ayuu u yahay in la xirto madaxasaa loo socto haddii maradan la xirto marka qofku ma wuxuu ku noqonayaa gaal taas baa dadka weydiinayay waxaa dhacday marka maradan baa bahashan baa qaba koofiyaddan mara maahane baa madaxa marka iskaga daansi gareynayay waxaan u xirtana waxay ahayd dadka baa waxaan tusayay maradu ma ahan maradu qofka kama dhigto ma fiicnayso mana xumayso dharkaa xiranaysid qof ahaantaada qof wanaagsan oo suuban oo saalixa kaama dhigayso haddaada qof wanaagsan ahayn meeqo ninbaa qabta qamiis iyo dhar aan u naqaano inay dhar diimeed yihiin haddana dadka biraysa meeqo dumar ah baa caruur dhibaatayso oo xanuujiso oo deriska xamata oo waxa eeba raalle ka ahayn samayso sino samayso tuugnimo samayso oo haddana waxaa marada u taqaanaa xijaabka qabta ma ogtihiin so waxaa idin tusayey mar qaladka waxaa lagu qaldaa qaabku qofkuu labisan yahay anaga soomaali ahaan markaa aragno gabar barada qabto xijaabka loo yaqaano waxaa loo yaqaanaa qof wanaagsan oo asturan oo fiican ilaahay waa qof fiican laakiin waxaa dad badan inay dishay we never know so marka waxaa u baahannahay dadka inaa baranno dharkaana ku qiimeyn iyo hadalkooda fiicnaanto laakiin si fiican inaa qofka u baratid inaa qof iska aamintid aada aqoonin oo doqonnimo walaalkani waxaa ku dhacay bal sheekada mar kale walaalkii soo gelinayaaye walaalkaanas dhahan walaalkii may ku khafiiftay walaalka waxa ku dhacay baa xanuun igu noqday yare walaalkii waxaa ku dhacay ninka markuu wax ku darsanayay muddo is yaqaaneen abti macaane abti waxaas isdhahayeen may kala qoran waraaq qofka ma dhihi karti waa qof muslin oo soomaaliya ma dhacayo ima xadayo soomaalida waxaa xaday oo dhacday waa qof kaloo muslim oo soomaali ah soo macnaheeda ma ahan qofka muslimka oo soomaaliga inuu tuug noqon karin tuugo waana dilaayaal maadaama ay dhacday in badan inaa qofkaa taqaanid oo soomaaliga kula ah weliba aqraabaysanayso inuu waxaaga xadayo waxa anigu ku leeyahay arfayskaan ku siinaya ama taladaan ku siinaya waxaa weeye haddaa qof wax ku darsanaysid hanti waraaqa la qorta
intaa isku darsateen intuu kugu darsaday marqaatiyaal inay leedahay waraaqda adigu inaa koobi ka originaalkayga reebatid qofka kale inaa koobiyeysid haddaa adigu marka hore meesha aa laheyd moogtahay inay caddayn leedahay laakiin markaadan haysanin wax caddayna qofka wax isku darsateen waa lagu dhici karaa waa lagu dhibaateyn karaa waxaaga baa la inkiri karaa qofaan waxba kugu darsan baa kugu qabsan karaa ku qabsi ku qadimayside baa socon jirto so waxaan ka waday dharka ma ahan wax qofka qaymo u yeela mana ahan haddaad dharka iska dhigtid qaymihiinu kaa duulayo gibigaaga dhanba oo aad noqonaysid qof aan iimaan lahayn oo wanaagsanayn oo naag shar ah inaad noqonaysid nimanku waxay u arkaan naagta la guursan karo oo loo galmoon karo oo nadiifka oo fiican inay dhar qabto dhar qofnimadeeda iyo inay la sheekaystaan iyo didnimadeeda oo dhan waxay kusoo koobayaan oo mara miyay qabtaa haa wejigeedana ma quruxsan yahay isku dhamaatay waa qof la guursan karo anigoo kala laga yaabo sa hadda u libsanana u libsan in loo arko naagtas naag guru qalanta ma ahan runtii waa naag iska makaranaysa so qofku muxuu qiimeeyey kofarka qofka dharka u xiran yahay taasna waa qiimaha oo waxa ugu xun oo qof lagu qiimeeyo waay qofkina dharkiisa ah ku qiimaysid mii fahamtay waxaa jirta tusaale ay soo qaataan dadku ay dhahaan nanac duuduuban iyo nanac afka lahaya furan keebaad qaadan lahayd dumarka lagu maahmaaha waa maahmaah iqyaqsi ah oo doqonnimo ah oo karaamada looga qaadayo dumarka runtii ma nacnac la cunaya baa nahay anagu nanac inta la fiiqdo hadduu fiiqanya afka la iska gashanayo ama haddii la dhilayo la furanayo sumaartid waxaa lagaa qaadayaa dareenkii iyo sharaftii iyo dadnimadii qof waxaa tahay eeba sharfay dumarku waa dad eeba sharfay oo qiimo leh waxaan leenahay dareen waxaan leenahay rabitaan waxaan leenahay diidmo waxaan leenahay damqasho waxaan leenahay naxariis waxaan leenahay xanaaq wax meel la dhigayo la cunayo baa example bilaadan human dhan oo eeba karaameeye baa cunto anigu aan gacantiina ku sameynay baa waxaa la soo qaadanaya tusaale waa tusaalaha ugu liita oo gabdhaha manipulationka lagu sameeyo waa tusaale xun weligaa allah tusaalahaas aan lagu soo qaadanin diid waxaa ku dhahdaa waxaa nagala tag tan kaloo ah tan waa fanaanad garan baa ka hoos qabaa waxaan ka hoos qabaa wax kale waxbaa ay xiran kuula ay xiran waa labis waa dhar qaabka u xiranaya hoos wax kalaan ka qabaa mara kalaan siyuugsanahaba qabow baa jira soo markaa fiirisid waxa la dhaho in haddii uuna qofku qabanin maradan daaha ah maradan weyn oo madow qof gabadha hadday sixirneen in la dhaho waa qaawan tahay waxay ahayd dharka kale oo dhan baa waxaa loo arkay haddaa dharkan kale aan qabto ereyga waa qaawan tahay qaawanaashaana maxaa u naqaanaa mudh iyo gacan qofku markuu yahay qofku markuu gebigiisa sida gacanteeda ay tahay jirkayga dhan markuu yahay baa qaawanasho caadi af Soomaali lagu dhaha laakiin maxaa la dhahaa maalin kasta maxaa maqalnaa maxaad isla qaawis waayo maradan weyn markaa qabtid dharbaa qabtaa waa luuqad ay isticmaalaan oo kuu tusaan maryaha inay yihiin maryo ayna jirkaaga qalin marka waxaa laga soo qaada jirkaaga dhan inuu si shabqayo lagu daawanayo gibaaga dhanba lagu arko oo muuqato okay dhanka kale 20 daqiiqo markuu gaaraan joojin doonaa haddii ay beedmo suna u dheeraanin dhanka kale markaa eegtid ragga lama tiriyo dharkooda inta badan saas looma tiriyo sida anagoo kale inkastoo ay jiraan waxyaabaha iyagana lagu abuuso timaha maxaasaa ugu jaratay oo timaha jeegaha u jaran timo dheer haddii la wiilasho timaha maa iska jirtid dhaqangaalaha wadataa timaha maa iska jirtid bay dhahaan mogtahay dadkan xiiran waa wax in hadda dadka la xiiro ay timaha gaabsadaan wax hadda imaaday in dumarku shulgan uu xirtana waa wax hadda imaaday ma ahayn dhaqankeena suubanaayo saalixaayo Soomaaliga ahaa waxaan kugu soo gabagabeynayaa
weligaa Soomaaliya intaa joogtay miyaa maqashay qof dumar oo barakaysan oo karaamaysan oo la siyaarto siyaarada waxa loo yaqaanay siyaarada ama weli wax qofka magaca weli dumar baa waxa loo isticmaalaa rag dumar ma lahan gabar weliyad ah oo la dhaho hiblaayo oo barakaysan oo loo duceeyo oo hooyo ah ma jirto dhammaan qabuuraha la siyaaran jiray dadka laga duceysan jiray waxay ahaayeen niman dadkii barakaysnaa oon soo maqlana waxay ahaayeen niman wax nagaa kuma jiro waxay ku dhacday bay kula tahay adaa ku weydiinaya qofkay daawanayo waxaa loo waayay gabar barakaysan oo Soomaaliyeed oo la siyaarto xilliga siyaarooyinka iyo waxaa la aadi jiray maxay geebi u noqdeen rag kuwa barakaysan maxaa barakada dumarka ka qaaday baan isweydiiyey moogti weli lama hayo naag barakaysan miya mid kale haddaa fiirisid baan ku tusayaa qabiiladii waxaa ka jira Soomaaliya hadda ka horna fidaashii hore waan uga hadlay dhammaantood qabiilada oo dhan niman bay u taagan yihiin wax dumar oo la dhashay ma lahan gabdho la dhashay ma lahan raggan gabar kasta markay dhimato baa ugu dambaysa dunidan Soomaaliya magaceeda uu baabaa waxay dhashay dadka dhashana magaceeda ma wataan ayaydaada saddexaad hadda inaad aqoon baa laga yaabaa qofkii dhageysanaya ayooyinka laakiin awooyaasha waa taqaanaa so markaa way baabeen so meesha dumarka waa la sharfaa taasna waa been meel ay dumar la karaameeyey meel ay ka jireen ma jirto oo Soomaaliya joogay marka islaam waliyad ah oo saalixad ah oo la siyaarto reerkiinu ma lahaayeen oo waa la xusayaa baad maqashay ayayaa la xusayaa weli ma maqashay kolley adugu intaad reerihiina familkaaga qofkii dhageysanayo weli ayadaa ma xusteeno ma u duceyseen ayadaa aabbaha dhashay taa ma ahan aniga ayadaa aabbahay dhashay mar la xusaan xusta aabbaana xusay allah naxariistee laakiin ayayinka ka soo horreeyey cidna ma xasuusanba ma u duceyseenoo ma la xasuustaa sida waxaan sheegayaa alabaryaasha waaweyn laiskugu tago meelaha la tago odayaasha baa maqlaa baa la xusayaa qabiilada waa odayaal islaamaha lama xuso kuwa culummada waxaa sii dhintay waa awliyada waa niman waa wax cajiiba weeye yaa goormay dumarku helayaan cadaalad yaa dharaar baa iman doontaa in cadaalad dhamaysoo abid aan dhicisoobin ee dhulkeena ku faafto dharaar baa iman doontaa dhadigoo talinaayo oo xafiisyada dhooban waxba aada dhehayno aad salaanta u dhiibto dharaar baa iman doonta labku uu dhakafaaro waxa ay dhahayaanna qof dhagaysta la waayo beenta ay dhurayeenna dadku ay ka dhaqaaqaan anigaas kale qof kale ma laha meelahaas anoo kaadhiinaas kale waan soo dhammaystirayaa way dheer tahay garanaysaa intaas baan kugu darayaa jacayl baan idii hayaa iyo wanaag maaragtay youtube-kaygan soo follow gareeya rukun ka noqda Soomaali waxa lagu dhahaa rukun ka noqda ruuxeeda markaa aragtaan ii duceeya ma fahanteen ayada ma fiicna walaalayaal ambayda ma caayanina cayma geeye naagtaas quruxda badan oo asalkeedu Soomaaliga yahay oo waddanka barakaysan oo Norweyn joogta baan ahay marka cayma geeye yaa lay caayin caydii waxaa iska daaya khayr iyo baraaraan kaga tegay habeen wanaagsan